goobtani waa badda ee ku taalo Afisyooni ama isbitaalka Yardameeri sida idiin muuqato meeshan waa dhagax jamala ah meesha hirku uu yimaanayana waa meel halis ah waxaa ku yaalo godkaasi oo ay halis tahay isla markaana wiigi hore ay ku dhamaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed halka uu hal wiil uu ku dhintay inta kalena ay kaga badbaadeen waxaan muuqaalkan idin kula wadaagayaa halista iyo qatarta ee badan leedahay isla markaana ay caruur badan ay ku dhamaadeen kuwa laga warqabo iyo kuwa aan laga warqabin oo aysan waalidkood ogeyn meesha ay ku dambeeyeen maanta oo ah maalin Jimco ah waxaan booqasho ku tagay badan si aan xaaladeeda u soo ogaado isla markaana ugu wacyigeliyo ilmaha yaryar ee sida halista le meeshan ugu dabaalanayo aan loogu talagelin in lagu dabaashto sida ka warqabno caruurteena Soomaaliyeed qaar ma ahan kuwa yani war ka maqlaayo halka qaar kalena iska madax fudud yihiin ee ka ogolaanayaan kuwa ayaa waxay ku andacoonayaan aniga baawurac maada iga soo bixin sida rabana waa ugu ciyaaraya aniga oo arintaasi duubayo waxa meesha joogay wiil yar in cunga yar ka fiiri ma yiriska dar war hadin wariya yiriso hadin soo noq waa ku duceenaye arag nasiib wanaag cunug yaraa waligeed inuu ka soo noqdo abaamay qana ma ahana ciyaarna ilmahan hadafka meesha uu yimaanaya waxay tahay inay waqti ku qaataan isla markaana iskaga ciyaaraan mana ugu qatarta ay meeshan leedahay waalidkoodna ma ka warqabaan badankood kuwa meeshan ku ciyaaro halkan waa meel halis badan meel maraakiib ay ku soo xirtaan moolkeedan uu aad u badan yahay dhulkeedan uu yahay dhul dhagaxyo badan dhagaxyadoodan ay halis badan tahay isla markaana ay aad u sibibxsan tahay hadii hirka uu kacona ay halis tahay in qofka ay jabal ku dhufato ama badda ay sii qaadato waxaan muuqaalkan idin kula wadaagayaa si aan ugu taxadarno caruurteena Soomaaliyeed godka waa idin kugu soo zoom gareeyay waa godkaas qofka haduu dhax galo kama bixi karo si dhuuban wuxuu u sii wadaysaa badda dhankeeda qofka naqaska ayaa ku dhagaayo wuxuu u dhimanayaa oxygen la'aan si walba dawaal u yaqaanan kaga badbaadayo ilmahana waa kuwa diiday inay meesha ka tagaan isla markaana madax adeegay isla kaamirada iyadoo socoto cunugaas yar waxa dafay hir ayaa ku yimaaday hirkan wuxuu ahaa hir aad u culus isla hirkii wuxuu awood u yeeshtay inuu cunuga gudaha galiyo hir labaad ayaa mar labaad ku yimaaday wuuna sii qaaday laakiin wuxuu nasiib ku yeeshtay isla markii goobta waxaa joogay wiilal dabaal yaqaan ah oo u bareeray naftooda si walba ay badda u kacsaneedna ay galeen ku dhawaad 5 wiil ayaa baddaas gashay si ay cunugaas yar ee u soo badbaadiyaan badan ma ahan markii ugu horeysay oo ilma ay laqdo isbuucii hore waxa ku geeriyooday ilaaha u naxariistay wiil si kama ah godka ayuu ku dhacay naqaska ayaan ku dhagay oxygen laan ayuu u dhintay halka gabar uur lehna ayadoo dhagax fadhiso ay hir ku yimaado qaaday ayadoo naf lacaari ahna la soo badbaadiyay muuqaalka sababta aan ugu adkaystay inaan sii duubo waxay ahayd in caruur badan oo Soomaaliyeed muuqaalkan la gaarsiiyo arkaan kana waantoobaan meelaha halista iyo qatarta ku ah naftooda in ay tagaan waalidiinta Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa halka ay caruurtooda ay ka celin lahaayeen inay badda tagaan in ay caruurta siiyaan wax bedel u ah ay ku ciyaaraan nafsada caruurta waxay u baahan tahay waxyaabo ay ku ciyaaraan ay madadaalo u helaan hadii aad caruurtaada jeceshahay si waqti aad kula tagto goobaha dalxiiska goobaha badda ama xeebaha isla markaana aad ka warqabtid halka uu cunuga ku dabaalanayo in ay tahay goob sax ah iyo goob qaldan isla markaana ilmahaagu uu helo waxyaabihii uu baahnaa laakiin nasiib xumo waalidiinteena waxay pressure caruurta ku saarayaan in ay meelahan oo kale ay tagin isla markaana ma siiyaan wax bedel u ah caruurtaasi sida u jeedin wiilashii waxay isku dayayaan inay cunug yarka ah soo saaraan hadda way la kulmeen waxayna ku dadaalayaan in ay soo saaraan dhanka ay badda ka galeen kama soo bixi karaan waxay badda u sii wadaa dhankaas kale dhanka ay pressure-ka badda ka leedahay ay u wadaan halka ay ka galeen masaafo ku dhow adiga xoogaa nus kiiloomitir ay ka soo saarayaan
waxaan dhalinyaro ah u jeedin waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo madadaalo u yimaadeen in ay maxay ahayd meeshaaneed ay ku damaashaadaan waxaan baaq u dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed in ay ku soo kordhiyaan goobaha ama waaskooyinka lagu dabaashto ee gaarka loo leeyahay caruurtan danta yarna aanan la hilmaamin ee wax qaas ah loo sameeyo waxaan sidoo kale baaq u dirayaa ciidanka badda in ay goobahani ay yimaadaan maalmaha Khamiista iyo Jimcadana ay ka warqabaan caruurta in ay tahay meesha ay saxda ay ku dabaalanayaan isla markaana ay u diidaan meelahan oo kale oo khatarta leh in ay galaan waxa sidoo kale cid walba oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay ama xil u haayo ummadda Soomaaliyeed in ay meelahan oo kale khatarta leh ay ku sameeyaan wax kala xiraayo baddi iyo xeebti si ilmahaasi aysan ugu gudbin meelahan khatarta leh ee xeebta iskaga dabaalan karaan waxaan rajeynayaa fariintan in ay noqoto fariin dhaxalgal ah isla markaana ilmaha yarna looga taxadaro cid walba oo mas'uuliyad ka saaran tahay badane ay mas'uuliyad iska saari doonaan in maalin walba caruurteena ay ku dhamaadaan badihii kuwa kalena ay ku dhamaadaan qaraxyadii waa wax nasiib dara ah waa wax anaga aan iska wacyigelinin isla markaana aan iskugu turin waa yani wax laga xumaado nasiib wanaag cunug yara waa la soo saaray una nabad qaba una caafimaad qaba ilaahay ayaana mahadaas iska leh waadna mahadsantiin dhamaantiin